Isuduwaha Wasaarada Xanaanada Xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdilaahi Ismaaciil Looche ayaa habeenkii xalay ahaa hoteelka Maamusay magaalada Berbera xaflad Casho Sharaf ugu sameeyay Xulka Kubada gacanta ama basketballka ee Gobolka Saaxil ee ka qayb gali doona ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee maalinta berri ka bilaabi doona caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaana xafladaasi ka soo qayb galay guud ahaan ciyaartoyda kubadda gacanta ama basketballka ee Gobolka Saaxil u matali doona mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba marti sharaf karo lagu marti qaaday waxaana ugu horeyn halkaasi faahfaahin kaga bixiyay xafladaasi ama Casho Sharaftaasi uu sameeyay dhalinyaradaasi kubadda basketballka ciyaarta Isuduwaha Wasaarada Xanaanada Xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdilaahi Looche كابتن بايس كير جرو حلقة يابين اللي يرادون يسدوا كبدا باسكت كمحو عسومي كبدا عقتوا عسومي واي وحوي أنا وحنو يرب جنشيرا حاجة باسكت كيه فولي بوش يراك عمها هي أنا جنشيرا وهي مركز جامعات اللي جامعات حنان حولا باسكت فولي بوش أنا عيار جري جامعات ده عيارتي قبل كهرجي سوي عيار جري باسكت كان نمبر 1 كها كلاس ميت كيجا يعني عبد أنا أقول باسكت كمان هو شوك لكن فولي بوش أنا عيار جري رجع ولي حسن عدا كم إذا فولي بولر كها رشيد لقى سير والله باسكت كها رجع صاروا بقى أصحاب تدي جروب كيها مركوا صوبها صوب كانوا يجتمعوا عيارتين هالكن مرة عيارتك عنتي على جسكا رجع بعدنا عيارتين يجرا أساسي جسكا هرجسنا وانا معلم كودنا وانا مركوا صوبها تاجريو مركوا السلام يا جول بعدين رجينا مركوا وعلى مهنقيان عادي هذا قول مهنقيا Isuduwaha Xanaanada Xoolaha Axmed Nooje oo odayaashii magaalada marar iska nin dhalinyaro ah mar nin sportiga oo mar uu kombiniyo halkan uga mas'uulaha gobolka sportiska caawin jiray imikana sidiisa uga mas'uul dowladeeda oo caawinayo ugu dhex jira ayaan mahadnaqayaa marlabaad kale waxaan halkan mahadnaq kaalamida iyo bogaadin baan usoo jeedinayaa inamada basketballka oo guul iyo sharaf hore gobolka ugu soo hooyay sidoo kale ciyaartoyda kubadda gacanta ama basketballka ee xulka gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay Casho Sharaftaasi uu sameeyay Isuduwaha Wasaarada Xanaanada Xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Isuduwaha Wasaarada Xanaanada Xoolaha iyo kalluumaysiga oo halkan marti sharafkan Casho Sharaftan inoo sameeyay Axmed Xaaji Cabdilaahi oo ku magac Naalisa Nooche horyaalkan horta kooxdan waa kooxdii horyaalka kubada Kolayga haysatay sanadkii 2016 dabayaaqadiisii insha Allah kana waxaan ugu rajaynaynaa inay guul ka soo hooyaan idinkana mid baa idinka doonaya kulli hadda ciyaartoyda tiin waxa idinka doonaya maadaama investment inta la idin gelayo oo saacabadu idinku daalayaan rag iyo dumar yar iyo weyn gobolkii teena idinku nas dhiganin inamadiina garoonka galaya wali waxaan filay basketka de 5 qof baa gala garoonka idinkuna dhowr iyo 10 baa kule ka commentiin tashantanina ugu adag in la dhiga meesha waan gal hore waan la kicin ayaan jecelnahay insha Allah taala waan idinku hambalyeynaa sanadkii hore haddaynu midna final tagnay midna aanu qaadnay waxaanu gaarnay darajooyinka ugu sarreeyay intii koobka aynu ku guda jirnay dhacday baan idin yar xasuusinayaa galabnimadkii waxa ciyaarayay xulka daad madheer baa ciyaarayay iyo xulka gobolka Saaxil baa ciyaarayay xulka gobolka Saaxil baa habeenka ayaanta badiyay annagoo faraxsan ayaan gaarigii meesha la isdhex yaaco gaarigii maayarkan soo fuulay dabeetana markan soo fuulay berberu ku soo jeeday xildhibaan Cabdirashiid oo halkan ka maqan oo joogin ayaa isaguna nala saarnaa dabeetana waxaan ku gudoomiyay qoladii baaskitka wuxuu beelay cagti baad u tagaysay miyaad baaskitka u imanaynba daad mareer baan ku nalaanaysan kuna gudoomiyuna ma ogeeno baxo islaha dabeetana wuxuu yiri masaas ahaa maamuus hotel markan u marayno ayuu yiri war Cabdirashiid ducaan ku raacinaya ayaanigu wax ku noqonaya kooxdii balorado iska anbabax mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil oo iyaguna xafladaasi ka soo qayb galay ayaa ka hadlay xafladaasi iyaguna uga mahad celiyay Isuduwaha Casho Sharaftaasi uu sameeyay ciyaartoyda kubadda gacanta ama basketballka iyaguna tilmaamay inay muhiim tahay in ciyaartoyda la dhiirigeliyo waqtiyada ay ciyaaraha ka qayb galayaan la iska rabtaago runtii farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay maamulka iyo gobolka degmada inaan dhalinyaradeedii ku soo dhaweeyno halkan xulka kubadda Kolayga ee gobolka oo runtii
sharaf weyn naga mudan gobolka iyo dalka dhan sharaf ka mudan waxay haystaan koobkii muddo dheer baynu haysanay sida uu tababaruhu sheegana markaad horyaal tahay haysashada koobka ayaa ka adag inaad maxay tahay kubad ciyaarto final timaado laakiin isku xidhnaantiina iyo isku xidhnaanta maamulkiina waxaan rajaynaynaa halkii aynu sanadkii hore gaadhnay in insha Allah gaari doono calafku waa halkiisa anaga dardarankaygu waxa weeyaan commitment-kayaga iyo maxay tahay taageeradeeda waad haysataan kulli hanigii Axmed waxaanu nahay tima cadaan nahay marka qolada basketball-ka waanu isla dhiig baxnaa runtii dhammaantiin aad baan idin salaamayaa maamulka gobolka iyo ka degmadaba waxaan salaamayaa dhalinyarada sportska ee waliba gaar ahaan basketballeriska waxaan idin rajaynayaa guul marka labaad waxaan aad ugu mahad celinaynaa oo sharaf weyn u haynaa dhiirigelinta oo dhalinyarada siiyay Axmed Nooche oo runtii ku suntan ama ka tirsan bahda sportska aad baan kugu mahad celinaynaa oo waajibaad aad leedahay oo aad garatay rag badanna looga baahan yahay inay gartaan marka labaad caawa waxaan ila qaybsanaynaa farxaddii insha Allah tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa markii horena waan ku faraxsanaan imikana waan ku faraxsanahay inaad gobolka aad guusho soo hoydeen guushii horena haysan doontaan guulada mana soo hoyn doontaan kalsoonidii aynu hore ugu kulannay iyo kalsooni ka sii badan ay maamul ahaan idii haynaa waxaana laga shaqeeyaa waa qalbiga wey waa haween dhiirigelintu waa qof waa inuu kalsooni haystaa waxaan u mahad celinayaa marka hore Casho Sharaftan Isuduwaha inoo sameeyay caawa inaynu halkan ku sii dardaaranno oo ku sii balanno oo aynu kaga shaqeeyno waxaynu rajaynayno iyo qaabkeenu wax u galeynaba ayaan marka hore u mahad celinayaa dhammaantiina waan idin wada mahad celinayaa waxa weeyaan ciyaartayga halkan fadhiya runtii waa rag la garanayo oo caan ku ah kubaddan ay gacanta ku hayaan ee halkan ay kaga qayb galayaan inay gobolka Saaxil ugu ciyaaraan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala sidii la idinka bartay inaad guul u soo hoysaan gobolka ayaan rajaynaynaa marka hore Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera